gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Ibraahim Cumar Mahad Alle ayaa booqday qoys danyar ah oo dhibaato ka soo gaartay qaraxii 25kii Maaj ka dhacay wadada Sayidka ee magaalada Muqdisho iyadoona qaraxaasi ay ku geeriyoodeen Maamad Suxubey iyo wiil ee dhashay halka aabaha reerka iyo gabadha yar uu dhalay ay dhaawac halis ka soo gaareen. gudoomiyaha ayaa waxa uu ku kala booqday isbitaalka Jazeera uu ku jiro aabaha reerka Aabe Xasan Gaabo Jareere iyo gabadhiisa yar ee Maa'ida oo yana ku jirta isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. mid ka mid ah ehelada reerka oo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay ugu mahadcelisay maamulka gobolka Banaadir garab istaag ay u muujiyeen iyo booqashada maanta uu ku soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir. waxaan nahay qoys waxa dadka hore ay dhamaadeen abtigay xaaskiisi iyo wiilkiisi ay dhinteen oo qarax ku dhacay sayid kula dhacay abtiga oo xanuunsan yahay gabar walaasheeya oo abtigay dhalo 9 jira qarax oo ku dhacay firir oo ku jiro firirkan hadda qalataan laga sameey karin hadii lagu sameeyayana in dalka dibadiisa loo qaadmo dalka wax looga qaban karin. hadda maanta waxaana soo booqday maamulka gobolka Banaadir waxa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Ibraahim Dheere ana soo booqday wuxuu yiri qarash wixii ku baxo isbitaalka maamulka inay ka bixinayo waxaan ugu mahad celinayaa gobolka Banaadir iyo wiilka walaalkeena Ibraahim Dheere soo booqday waxay noo garteen oo aan ugu mahad celinayaa. gudoomiyaha ayaa ehelada qoyska waxa uu ka wareystay xaaladda aabaha iyo gabadha yar dhaawac soo gaaray isla markaana maamulka gobolka Banaadir uu kafaalo qaaday daryeelka qoyskani. maanta waxaan soo gaarnay isbitaalka Jazeera ee xaafadda Warta Nabadda halkaas oo aan ku soo booqanay qoys Soomaaliyeed oo 25tii Maars oo nin lafti haliga ah uga soo galay guriga ay deganaayeen halkaas uu qarax oo kula beegsaday waxaa geeriyooday maamadii reerka Maamad Suxubey Maxamuud Dhicisow waxaa la geeriyooday Sayid Cali Xasan Jareere oo ah wiil ay hooyadu ee dhashay waxaa dhaawaca aabihii reerka Aabe Xasan Jareere Xasan Gaabo Jareere Xasan Gaabo waa soo booqday aabe xaalkiisu waa fiican yahay waxaan u rajaynaynaa caafimaad intii dhimatana waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay jannada geeyo gacan waxaad sheek xaq daran runtii qoyskan waa qoys danyar ah runtii degan sayidka meelaha ay degan dadka barakacayaasha ah ka gobol ahaan anagu waxaan rabnaa inaan caawino sida aan u caawin jirnay dadkii Soomaaliyeed horey dhibkeena uga dhacay caawinada ka soo gobolka waxaan rabaa inaan baaq ugu diro dadka Soomaaliyeed walaalaha ah ee daawanaya inay qoyskan ay caawiyaan qoyskan runtii oo dhib gaaray hooyadii reerka dhimatay aabihii dhaawac yahay wiil oo dhintay waxa kale dhaawaca wiil yar oo 2 jir ah marka insha Allah Soomaalida waa iscaawiyaan waxaan rajaynaynaa inay baaqeen ka soo jawaabaan anagana insha Allah waxaan garab taaganahay qoyskan waxaan kula dardaarmayaa waxaan wax qoran ahaayeen lama celi karin laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa anagu ka gobol ahaan inaan garabkiina taaganahay waxa la wixii ku baxo oo biil ah oo reerkan dhakhtarka ay joogaan inta iyo kan Digfeerba waxa ballan qaaday maamulka gobolka Banaadir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maamulka gobolka Banaadir ayaa had iyo jeer u taagan garab istaaga dadka danyarta ah ee aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka isbitaalada waxaana xusid mudan in reerkani ay yihiin reer danyar ah isla markaana dhibaato xooggan ay ka soo gaartay qarax uu fuliyay qof naftiis hore ahaa.